بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وسلامتين دمانتين سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأسمان محمود سيداد لسعطان بريحان وحالو جرا self isolation أما بندو ساتو تقانان والدولة لها عالم كأكو دواخين إن خوف كست إنو قرقي سجور مركا وحان رجينا إن شاء الله تعالى anagoo tixraacayno awaamiirta dawladda inaan guryaheena joogno inaan markasta gacmaheena dhaqano inaan qof kasta distance aan u dhaxayno la kala fogaado si oo qof kasta qofka kale inuu caafimaadkiisa ugu taxadiro marka waxaa loo baahan yahay awaamiirta in dawladda markasta ay ku dhawaaqaan inaan raacno midda kale sidaad la socotaan marka guryaha la joogan waxaa loo baahan yahay in waalidiinta ay isku naxariistaan inuu aabaha ilmihiisa u naxariisto inuu hooyada ilmaheeda u naxariisato ama labada isqaba inay isu naxariistaan ilaan waxaa jiro waqti badan ayaa la isla joogaya sida la socotaan waxaa laga yaabaa bil in hal guri labada qof ay isla joogaan dabeecadahooda aan is aqoonin inay hadda isbartaan waxaa dhici karta dad 20 sano isqabay aan dabcigooda is aqoon laakiin hadda ay isbarteen qof kasta wuxuu yahay marka waxaa loo baahan yahay in la isku naxariisto in ilmahana loo sabro ilaan meel ay ku ciyaaraan ma haystaan maanta oo dhan gurigay joogaan marka waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad naxariis la muujiyo maadaama qofkii meel uu aada jirin qofkiina guriga uu joogo in fursad la siiyo inay wax ku bartaan waalidiinta inay ilmahooda la fadhiistaan wax baraan salaada jamaacada inay isla dugtaan iyo wixii khaldan inay ilmahooda ka toosiyaan marka waxaa loo baahan yahay in naxariista awalan waa very important qofka inuu naxariis lahaado sidaad la socotaan waxaa batay crime-ka ingiriiska crime-ka ugu badan wuxuu noqday violence domestic violence waxa la yiraahdo oo gaaray 125 boqolkiiba boqol waa kasii sarkacay 125 uu gaaray marka taasna waxaa keenaysa isfahan la'aan iyo isu naxariisasho la'aan marka waxaan ka codsanaynaa inaan isku naxariisano in waxyaalaha macna lahayn aan isku qabsano ma ahan waqti dhibaato lagu jira waxaa dhici karta qofka maanta as dagaalaysaan bari ina aad arki weyso marka waxaan caalamka dhan ka codsanayaa inay isku naxariistaan in la isfahmo khaasatan ilmahana loo naxariiso maadaama dhibaatooyinka jira waxaa kamid ah guryihi yaris ayaa la degan yahay ma degan qof kasta khasri ma degna waxaa laga yaabaa 2 qol ama 3 qol qof inuu degan yahay ilmihiina Soomaalida ma sha Allah ciyaal badan ay haystaan oo 7 8 6 oo marka odaygii hore banaanku aadi jiray laakiin hadda guriga uu joogo inuu nervous ku noqdo inuu gacan u qaado xaaskiisana aydan saas oo kale oo mushkiladii meesha ka sii badato oo booliiska isku waco marka looma baahna arintaas waa imtixaan lagu jira hala sabro hal isku naxariisto mid labaadna waxa waaye dadka baahana loo naxariisto bil ramadaan ayaa soo socda dadka aad ay u dhibaataysan yihiin nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri tadaawu bi mardaakum bi sadaqa isku daaweeya cudurkiina ma jiradeena ku daaweeya sadaqada marka sadaqada hala baxsado dad badan dhibaataysan ayaa jiro oo u baahan gacanteena oo na sugaya maanta anaga alxamdulillah wadamada Yurub waxay ku fiican yihiin dadkii dawladda caawinayso laakiin Afrika oo kale dawlad ma caawinayso marka anaga ilaahay ka soo thumma anaga in sugayaan qof kasta waqtiga la isku baahan yahay waa hadda qof kasta walaalkaaga wax u tar waxaan aruurinaysa bari waa ka tagaysaa dad bilyoneer ayaa geeriyooday marka hal is caawino waxa la isku qabto qaraabadan hala xiriiriyo qof kasta qofka haduu arki karin ama la kulmi karin telefoon ha waco assalaam xaaladiisa hala ogaado taasna waa yani naxariis qofka oo isku leeyahay ilaan marka la isku baahan yahay marqiyaan oo kale ayaa loo baahan yahay waqtiga hore qof kasta asaab iska nimceysnaa laakiin baahida hadda ay ku sii daran tahay marka insha Allah ta'ala waxaan rajeynaynaa wixii tale iyo tusaale inaad kuwaan qaado doontaan waan mahadsantiin billahi tawfiiq